الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله. walaalyaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u sameeyey nolosha bani aadamka wadooyin ay marto, ay ku socoto. wadooyinkaas oo koonka lagu talagalay inuu ku socdo. qoraxda soo bixitaankeeda, dhicitaankeeda lama bedeli karo. dhulka iyo cirka meeshay ku yaalaan lama bedeli karo. qofkii raba inuu guur helo oo caruur helo, waddo ayaa lagu talagalay, lama bedeli karo. wax kasta marka oo la marahayo waddo loo maray leeyihiin. waddooyinkaas loo maray qofkii khilaafaahi dhib buu la kulmahayaa, muraadkiisana ma uu gaarahayo. maslaxadda qofku uu leeyahay, ama maslaxadda ummaddu ay leedahay, ama maslaxadda qoysku uu leeyahay, waddo loo maraa jirta. waddadaasoo ah in qofku uu dadaalo, ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saarto, axkaamta islaamkana uu ilaaliyo. waxaa ka dhacaya adduunka waa la isku daaweeyaa. haddii dhibaata dhacdo, haddii cudur uu dhaco, daawooyin baa loo raadsadaa, waana loo helahayaa. laakiin haddii qofku hadduu cururka isku daayo oo cururka qofku iska daaweynaynin, hadduu qofkaas waxbaa laga sheegayaa, maskaxdiisa ay xatar dhaliilaya. marka haddii dhibaata ay timaado, ama abaar timaado, ama cudur ay wax yimaadaan, daawada iyo dadaalka waa la samaynaya. saas oo kale haddii khilaaf uu yimaado oo dadka dhexdooda khilaaf uu yimaado, daawo u baahan yahay. marka in khilaafka la daaweeyaa la rabaa, in khilaafka la sharciyeeyo oo khilaafka wax fiican laga dhigo, shay saxa ma ah. ilaahi subxaanahu wa tacaala qofkii doonayo inuu qoys samaysto, waddaa loo maraa. laba qofoo iska raalli ah, dad baa imaanaya, dad baa goobjoog ahaanaya, wax fiican oo loo jeedo ayaa meesha ka dhacahaya. saas oo kale dowladnimada saasay ku timaadaa. shacab iswaafaqsan, dad wada socda, dad isfahamsan ayaa dowlad samaysan kara. haddii qoyska dhexdiisa wax ka dhacaan oo khilaaf uu yimaado, in la islaaxayaa la amray oo la daaweeyo. waddadaas baa loo jideeyey, waddo kale ma laha. in la kala tago oo qoysku burburo oo caruurtii dayacanto, diinteenu ma dhiirigelinayso. ilaahay wuxuu leeyahay, wain khiftum shaqaaqa baynihimaa, haddaa ka baqdaan labadii qofoo isqabtay dhexdooda khilaaf, fabcasuu xakaman min ahlihi, qof xaakim ah oo ninka xaggiisa ka socda ha la diro. wa xakaman min ahliha, qof xaakim ah oo xaaska xaggeeda ka socda ha la diro. xaakimka wax daaweynaya oo qoyska daaweynaya waa xaakim ayaga ka mid ah. labada qof dad xaggooda ka socda ayaa wax daaweynaya, oo waxa jira ogaan kara, oo waxa jira ka naxahaya, oo qoyskan inuu fiicnaado raba ayaa shaqada loo dirayaa. khilaafka dowladduna waa noocaas oo kale weeye. khilaafka dowladda iyo maamulka iyo siyaasadda, dadka ay khusayso oo mas'alada iska leh, oo dalka iska leh, oo maslaxadooda meesha ay taallo, ayaa loo baahan inay qayb ka qaataan. laakiin sida qoyska aan loogu yeeraynin dad dibadda ah. qoys wax dhexdiisa ah in dibadda loo saaro, oo dad ajaanib iyo ay ceebtooda ogaadaan, oo khilaafaadkooda ogaadaan, oo halkaas ay uga dhigtaan, waa laga fiican yahay. saas oo kale umuuraha dowladda iyo dadka Soomaaliyeed, waxaa loo baahnaa in dadka Soomaaliyeed laga helo dad loo gardhigto oo kala dhex gala, oo loo gardhigta loo baahnaa. in khilaafaadkeena ceebteenna ay dad kale ogaadaan, waxay ka dhigan tahay adigoo qoyskaaga ugu yeeray dad ajaanib ugu yeeray ka dhigan tahay, oo ceebtaada dhex dhigay dad ajaanibka ah. markii saxaabadu xoogaa isu khilaafeen umuuraha khanaa'imtii, ayaa ilaahay la hadlay. ilaahay wuxuu yidhi, khanaa'imtay ku weydiinayaan nebiyow sala allahu calayhi wasalam, yaa xoolaha iska leh, xoolaha yaa mudan. waa waxa maanta yaalla oo kale, manaaficda iyo kuraasta ayaa la isku haystaa.
أنا كامضا أنا مضا أي على اسكو هيستا إلهي حولي قل الأنفال لله والرسول منافذ الاسكو هيستو غنائمت الاسكو هيستو إلهي بأسكال سبحانه وتعالى رسول كيس باخر حكم منها إياه ساسو كلام منافذ الدونك حق إلهي بيجرتا سبحانه وتعالى قفك هلي دونا يمدك واي دونا حكم إلهي بكو إيمانيا مركا أمضى مصلحات يدين لإلاشو أيها لو به فاتقوا الله إلهي كبقى الليلة مركا وإنك فهمنا وحا حق إلهي جرا إيا وحا أنك نصارا وحا حق إلهي جرا وحا هليسد إيا وحا وايسد حق إلهي جرا يسوى الوالي الحبا حق أسبو كيمانيا أما أكو وايسا لكن محاكو صارا محا نصارا أنك وحا نصارا فاتقوا الله إلهي كبقى بأنك نصارا وأصلحوا ذات بينكم حالة دحدي نتالها قاتية أي أنك النصارى الله كعبسا أن لك الرباء أنك إن أنتك حق أن لك الرباء أنك عدالة أن لك الرباء أنك إصلاح أن لك الرباء خوفك إنه قرتي سقاطا لك الرباء لكن وحا لهيلي دونه يوحا لوالي دونه وحاذي قوت على الله حق إلهي سبحانه وتعالى أيو جرتاه مركا غنائمتي ما انتاس جرتي وصحابة قاركو اسكو خبصدين وحالي اسكا دايا إلهي با اسكاله غنائمتا أصدقى بحية أصدقى حكمنا إذنكو قلوبتينا إيا والتين بدين إلى شدان لي ساسو كلمان تكوراسا لاسكو هايستو أو إله حدا لوكا لقربح لا إلهي أو انتاسو كوحوض أو سي ترميسا لسي نقون أيو أو لسوي من مسلم قال لسوي ماذين oo marba inta fariday inuu kala tagayo waxa ka dambaysa qofka isla waxal ama hebel waxasiini qofka oo shaqadii loo diray ilowsan ina adiga wax shil lagu ma dirin inuu hebel wax waaye lagu ma dirin waxa lagu diray farqashani waxa lagu diray ilaahay ka baq waxa lagu diray cadaalad ku hadal waxa lagu diray run ku hadal waxa lagu diray مصالحة الله يماو أو واتنمضى إلهي لكن هذه شقة إلهي أنفرق الشنو والقوة إلهي مركوالا يال وحلو باينا فهمنو المصالحة هي مدى الهشيسية أي واجب دينها أي تحي سيدا قويس كالا هذا قلت ريسي سيدا عهوطا لك رداتان هذا قلت بغيسي سيدا قرية بإنه الدماء هذا قلت علينا saasoo kale inay ummaddaanu kala daadato oo ummaddaanu maslaxadeeda ay weydo waa weeyday oo ummaddaanu adduunka ay ku daadsan tahay sidii qoyskaaga kala daatay oo kala weey ma jeclid in qoyska lagu celiyaa jecesha xaaska aabaheed iyo adeerkeed iyo abtigeed iyo duqeeda iyo sheekheeda ayaa ugu yeeraysaa suusa guriga u duuminin marka sida caruurtaada aad uga naxaysid muslimiinta iyo shacabka Soomaaliyeed uga nax oo gurigan iyo umadnimadan iyo dowladda inay dunto maslaxadku ma aha in shacabkan ay maaragtay balaayo ku dhacdo oo meel kale ay aadaan maslaxadku ma aha walaalayaal waxa weeye musaalaxadaas iyo inaan iscaynino oo hadda waxa loo haray ilaashano danta keenaysa diinta keenaysa waxa keenaysa حقا إنه ليهين ذاتك حرية كاني مالميه دويتو ولا دماشاده هي وفرحة بدل الموتشين هي وحاكو فرحة إنه يا كاني سيس الوكان وحاكو فرحة إنه خلاف لغو مكانين وحاكو فرحة إنه ضد السنعب مكانين وحاكو فرحة إنه الجانب مكانين وحاكو فرحة إنه ضد وراءها كاني وحاكو فرحة إنه شرفتكم موتشين إنه oo hambalyeelka muujinayno walaatinima lagu keenay ayada lagu hayn karaa tii shalay lagu keenay oo walaatinimada ahayd tii shalay lagu keenay oo in nafta la isku huro ahayd tii shalay lagu keenay oo in la isku tanaasulo ahayd ayaa lagu hayn karaa laguma hayn karo khilaaf laguma hayn karo danaysi laguma hayn karo in qofku uu maaragtay ka raadiya maslaxad عدد الصوماليين هو معروف كأه
xorriyadda ayada ah oo loo damaashaadahayay maxaan ka haynaa dadkii dadaalay allahu naxariistee oo xorriyadda keenay waddan midaysan bay nooga tageen maxaa laga hayaa maanta dad isjecel bay nooga tageen maxaa laga hayaa maanta ummad sharaf leh oo cizi leh ayay nooga tageen maxaa laga hayaa maanta qofkii soomaaliga ahaa dadkii ahaa midka maanta waa khilaafsan yihiin way iskhilaafsan yihiin waana kala tagsan yihiin dadkii shalay isjeclaa oo xorriyadda dhiigooda ku keenay oo dadaalkooda ku keenay maanta inay cadowgooda raadiyaan oo cadowgooda wax u maleeyaan ayay marahayaan oy dambiday dadkii noocaas ahaa oo midnimada ummadda soomaali ka shaqayn jiray iyo soomaalinimada ka shaqayn jiray inay ka quustaan soomaalinimada oy meelo kala aadaan ayay maraysaa marka walaalayaal inaan isdaba qabanno waxaa keenaya diintaa keenaysa dantaa keenaysa maslaxadda caamka ayaa keenaysa musaalaxa marka ayaa loo baahan yahay in soomaaliga soomaaliga kale uu sharfo soomaaliga sharfahayay shalay oo cisaynayay oo nafta u hurhayay oo dhufayska la galahayay oo dhiigga u shubahayay ayaa maantay isdilahaya waxay isku dilayaan baadkii iyo biyihii miyiga yaaleen maaha waxay isku dilahayaan kuraas baa la isku dilahayaa siyaasad baa la isku dilayaa magac la sameeyey ayaa la isku dilahayaa waa la isqafaalanayaa dad soomaaliya ayaa soomaali kale xabisanhayo xidhanayo haysanhaya waxaa noocaas oo kale ah waxaa weeye laga dhiidhiyo loo baahan yahay oo laga baxo weliba si degdega looga baxo ayaa laga maarmaana marka ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa uu ilaahayna amrayaa fattaquu llah ilaahay ka baqa halkaasa ka bilaabataa qof aan ilaahay ka baqayn ummaddan ilaalin maayo xoolaheeda iyo sharafteeda qof aan ilaahay ka baqayn cadaalad ma samaynayo qof aan ilaahay ka baqayn xaq ku hadli maayo qof aan ilaahay ka baqayn ummaddan soomaalida ah u turi mahayo xorriyadda waxaa lagu helay aan u daabaldegaynay xorriyaddu run bay ku timaadaa xorriyadda beenbeen laguma keeni karo run baa lagu keenay dadaal baa lagu keenay laakiin been baa ku dhaqnay xorriyadda been laguma dhaqi karo kula joogi mayso wixii shay lagu keenay rabtaa dhiiggii bay rabtaa waartinimadii bay rabtaa dadnimadii bay rabtaa ma lagaa waayo ma sii joogayso marka waxaa weeye runtii shalay ay ku timid oo lagu helay ayaa lagu hayn karaa ay ku baraaraysaa ay ku barwaaqoobaysaa waxaa keenay dad soomaali ah oo waxa ay isku yihiin yaqaana ayaa xorriyadda keenay dad soomaali ah oo waxa ka soo horjeeda yaqaana waxa ay yihiin ummad nafteeda taqaana cadowgeeda taqaana ummadda waxa ka dhexeeya taqaana ilaashanaysa cadowgeeda taqaana ayaa xorriyadda keentay maantay ummaddeena joogtaa isma taqaano waa ummad ilowday waxa ka dhexeeya ilowday waa ummad ilowday cadowgeeda ayay garan weyday oo saaxiib u malays mar kastana in xorriyadda la keeno dadaalkay u baahan tahay waxaa ka daran dadaalka in xorriyadda la maamulo oo si sax loo isticmaalo xorriyadda la keenay si sax looma isticmaalin walidaalika waa daciiftay oo waa daciiftay oo waa daciiftay ilaa hadda ay ku sugan tahay meel halis ku sugan tahay ay ku sugan tahay xorriyaddii la keenay sida xun oo loo maamulay waxay keentay kuwii kale laftoodu inay maaragtay ku qaracsanaan waayaan marka walaalayaal in guusha la keeno waxaan ka yarayn in guusha la maamulo oo guusha booskeeda la dhigo oo guusha miraheeda lagu intifaacsado waa shaqo weyn weeye marka meesha aan beelnay annaga in xorriyadda la keenay maaha meesha aan beelnay waxaa weeye xorriyaddii la keenay sidii loo maamulaya laga khaldantay marka hadda in isdaba qabanno oo xorriyaddeenna aan dib u saxanno oo muslimiinta soomaaliyeed la musaalaxeeyo oo waxa dhexdooda yaalla laga run sheego wa idaa qultum facdiluu walow kaana daa qurba
هذا وحكوها الليسان عدالتكوها بإله إليه ولو كان ذا غربة قفك أكها الليسان قرابها كون غضاء كنت كشاك قفك أن في عنين ما في عنده خرجك وخرج به وحاس ما في عنده قفك في عنان تيسو قلو قفك خرج كيس كل شيء هذا ساس اللي يلين وقبيلة كاستقف كذا حن أي أمان يسوع قبيلة كاستنين كذا حن أي سوق كيليسو وعدالة دي رنت لوايه وحاصل مع في مهيان حرية دينا حق أن يقول هاي هي مكانة أن يقول هاي نجاه لميسو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد